Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelkeena Hani Jaafuli. Waa mar kale iyo muuqaal cusub insha Allah oo aad ka heli doontaan. Hani maanta maxay idin wadaa? Hani waxay idin wadaa maanta qado kaamil ah oo dhammaystiran insha Allah. Qadadaas oo ah bariis iyo malaay iyo ansalaatadiisa insha Allah. Kusoo dhawaada. Meeshaan waxaa ku haysanaa alaabihii aan ku dar lahayn malaayga, basbaaskaas, qalkaas, maxaa la dhahaye basbaaska aad u kulul ilmahan hadday bartaan way cunayaan, laakiin marka hore wuu ku adkaanay inay isticmaalaan. Meeshaan waxaa ku haysanaa huruud, xawaashiyo meeshaas ku haysanaa insha Allah. Kaas heel waaye, cusbo, filfisheeni iyo waxaa haysanaa oo kale xawaash kaari. ugu dambeyn zabiibkaas ku dareynaa bariiska dushiisa ka saarana insha Allah. Marka waa kaas meeshaan weelkaas hadda waxaa kusoo diyaarsaday waxaan kusoo diyaarsanayaa aan dhehee waxyaabaha isku darsanaa oo aan malaayga ku sameyn lahaa insha Allah. Liidnaantaasaa ka mid ah waan soo miiray xabad liin dhanaan aan soo miiray insha Allah. xabadaas liin dhanaanta markii aan soo miiray ka bacdi waxaan sameynayaa waxaan ku daraa waxyaabihii carcarfaayay mees huruudii aan ku daraa hadda basbaas gaduud. basbaaska haddaad aqooni marka hore ha iska badinin, aad u kulul yahay. qalkii aan ku daraa, qalka ma iska bedinaya, wax yar aan ku daraa insha Allah. furka haafkiis xataa ma la dhihi karo, kasi yar aan la dhihi karaa, wax yar aan ku daraa insha Allah. xawaash aan ku daray, xawaashkaas xawaash isku dardar ma aha, waa xawaash oo dhudhub oo kaligiis oo saafi ah. filfil aan ku daray, wax yar oo tuun iyo kabsar aan ku daraa insha Allah. intaana soo dhex gelinayna waa isku soo walaaqayna insha Allah. ka bacdina waxaan dusha uga shubanaynaa malaaygeeni. waxaan ku dareynaa cafwana ilaabay sheegay cusbo waxaan ku dareynaa iyo saliid iyo xawaash kaari powderkaas aan ku dareynaa insha Allah. xawaash kaari intaaniti waa waxaan ka dhigaa kala bara ku daraa ku wada daraa qaybta iyo hartana bariiska ku daraa ta ilaahay dhow. insha Allah malaaygan maanta malaay cadda waaye, yumbi in la dhahaa jeclaa malaayganiti. malaayga iyo qudaarta waa is soo dhex gelinay ka bacdi meelkiisa soo dhigana hadda bariiska dalacanayna hadii ilaahay dhow. bariiskeena maanta 4 xabo oo basal waaweyn waaye maasha Allah. adin waxaa nus kiilo camal waa, ma cabirin laakiin nus kiilo camal waaye. waxaa sameynaynaa basashaas maxay soo gaduudinaynaa insha Allah. saliidoo kuleel dhexdhexaada kusoo shub basasha. tuunteena ku daran insha Allah. tuuntii basasha waxaa rabaa inay isdhex galaan ay isku gaduutaan. bariiska caraftiisa lagu sheegay dhan waa tuuntaas iyo basashaas. weligaa bariis basal yar ha ku karsanin, mar walba basasha ay kuugu badato mar walba kuu sii macaanayo. basashana waxaa la sameeyaa waa la iska bisleeyaa intii aysan haddii kale hadhow bariiska iyadoo weyn ay kaaga soo muuqanay. marka weynoo gaduudto isku soo naqanay ka bacdi waxaan ku shubay kabsar caleentii insha Allah. xawaashidii haddana ku darayaa xawaash dhuudhuub ku daray. xawaashkan wuxuu ka kooban yahay 2 xawaash, xawaash dhuudhuub iyo xawaashka buurbuurka la dhaho oo la isku soo shiiday waaye ka hadda ku shubayo insha Allah. filfil aan ku daraa, filfisha waa muhiim bariiska u tahay. waliba bariis mar hadduusan filfil lahayn ma la dhihi karo bariis waaye. aham shay bariis la kariyo waxaa waaye filfishaas. ani maraq digaaga ma isticmaala, cusbaa isticmaalaa. cusbada gadaal aan uga daray waa muuqaalka kaamirada inay duubayso aan leena ma duuban, gadaal danba uga daray. marka
maraq digaag intaa isticmaal leed inaa xawaashidaada heelkaaga qorfahaaga waxaaga ku darsatid basbaaskaaga yarko dhadhanka kuu siinaa ku darsataad basbaaska ku darwayaa kabacdi cusbadaada isticmaashaa kaaga filan maraq digaag oo dhan haddii kale maraq digaag guriga lagu samaystaa jiro oo aad samaysan kartid insha allah taa mid aad soo gadatid yacni ma jeclaan inaan isticmaalo mar waa iska isticmaalaa waa gashtaa laakiin badan ma isticmaalo qarfii heela hadda kusoo daray qarfaha ma tumin heelkana ma tumin sidooda iyagoo aha ku daray xawaashkan waa xawaash kaarigi iyo harhadaati qaybta malaayga aan kusoo daray qaybteedii kale waa laanahu kaamil ma u baahnibo waas basashan guduuda noqota maasha allah bariiskaana ujeedii marka waxaa sameeyey kow jikada markaa soo galay ani jikada markaa soo galo qadada bariis hadaa karnaa iyada bariiska ka bilaabaa kow bariiska dhaqaa waa nadiifiyaa 2 jeer 3 jeer intaa dhaqi kartid kabacdi waxay ahaday waa la dhigaa biyaha intaa hawsheeda haysto bariiska si fiican isu soo dhexgeli waa soo shiil mudaa shiila kule bariis la shiilaa ma intusinay qof walba uu yaqaan sida bariis loo shiilo biyaheena kulaya ku darana midda labaad bariiska muhiimka aadka ugu weyn waxay tahay in aadan biyaha iska badin bariiska mar hadduu biyaha ka bato bajaq ka noqdo cunis ma laha wuxuu noqonaa wax yacni wax oo dadka aysan jeclaysanaynin inay cunaan laakiin bariiska mar hadduu furfuran yahay maasha allah kaala iska arag waayo marka bariiska biyo oo wax yar oo been ah tan kaleetood waxaa waani bariiskan waa soo dhaqamahan oo biyaal soo dhigay asidan biyo soo cabay maasha allah marka biyo yar ku dar geesa iska saare waa kaas uu soo bislaaday marka zabiibkii hadda kor uga daray zabiibka hadda haysan waa ka maarmi kartaa haddaadan jeclan adiga waa ka maarmi kartaa yani muhiim ma ah laakiin macyaha maahan oo zabiibka dhanaan yar uu leeyahay maasha allah bariisku ku soo baxaa kii bariis lahayn marka meel uu naga fariistay fahanteen hadda marka waxaa waaye malaayga ama kalluunka taqaanidba saliideena dabka saaran kaaliska arag ugu dhow korrida carafta meeshan ka dhacayso qofka jooga kaliya ka sheekeyn karo bariiska iyo malaayga iyo wixii marka la isku dubo kaaliska arag guriga dhan waa isqabsanaa insha allah bariisada asoo noocyo kala duwan loo karnaa idin soo gelin doonaa malaaygan sidoo kale tood asagoo maxay bur la marinayo oo kun la marinayo waxaan ku dhahay aad macaan badan idin soo gelina hadda malaaygan waxa waa wax bur ah ma marin wax ma marin maxaa la dhahay ukun ah kuma darin sidiisa zacfaraan isoo lagu daray jira xataa waa idin soo sameeyna hadda ilaahay dhadhoon nooc kala duwan insha allah janaalka hadda ku cusub tahay like dheh share dheh comment insha allah subscribe noo deeq aad iyo mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah muuqaal intaa ka badan waa idin soo gelin doonaa inta maxaa ku haystaa ansalaatada fridge-ka kasoo bixiyo dhowr maalmood ka hore ku keydiye sida fridge-ka loogu keydsa xataa waa idin soo gelin haddii ilaahay dhaho iyo bacaha lagu shubto meesha basal iyo xawaa qajaar iyo kaarot waa isku soo jarjara insha allah ansalaatada intaasay ka kooban tahay haddii ilaahay dhaho iyo dhammaan dusha looga shubo waa kana qadada lisaani kusoo baxday ka faa'iideysa habboon waxay inaa samaysato oo wax badan aa ka faa'iideeya rajeena janaalka waxay ahaday like noo dhaha subscribe noo dhaha walaalihiina kala gaarsiiya si ay uga faa'iideystaan insha allah isu soo noqod wanaagsan alxamdulilah ilaahana siiya ama had iska leh inta ay haysan ilaaha siiyo alxamdulilah waa mahadsantihiin aragti dambe oo xiise leh insha allah tasiinkaas yar quruxda badan oo soo samaysan mooskeena meeshaas oo noo yaala Soomaali maxaa kana hadaa bariis moos ku cuneen adduunka dadka kaliya bariiska yacni bariis ma ay cunta ku cunaa canjeerada ku cunaa baastada ku cunaa wax walba mooskeena maasha Allah ma ka tagano mahadsantiin